magaalada Trondheim ee waddanka Norway ayaa sharci siinaysa dadka qaxoontiga ee ku nool magaaladaas. Halkani waa deeqsame iyo anigoo ah Madeer Xasan. Waxaan qaxootiga sharci loo didaysin doonaa xuquuq muwaadinimo. Wuxuu hadalkaasi ka soo baxay golaha deegaanka magaalada Trondheim ayaa go'aamiyey in degmadu ay xuquuq muwaadinimo sin doonto dadka magaaladaas ku nool, balse sharci la'aanta kadib markii ay didmo kama dambays ah ka heleen codsiyada magangelyada. Xuquuqaha ay degmada Trondheim sheegtay in dadkan ay sin doonto ayaa waxaa ka mid ah guri, adeega caafimaad iyo adeegyada xanaanada guryaha ee lagu hayo dadka waayeelka. Go'aanka ka soo baxay degmada ayaa lagu qeexay in arrintan ay khusayso dadka sharci la'aanta ku ah waddanka Norway marka ay jiraan arrimo oo sababo culays nololeed ah oo qofkaas ula nool yahay. Sida tusaale ahaan qoysaska carruurta leh iyo dadka waayeelka ee baahiyaha gaarka ah qabo. Isla go'aanka degmada ayaa lagu sheegay in xuquuqaha cusub ay marka hore khuseeyaan oo ka faa'iidaysan kara oo keli ah dadka sharci la'aanta ah ee xiriirka la leh kaamka qaxootiga Sandmen magaalada ee Trondheim. Dadka aan xiriirka la lahayn kaamka qaxootiga Sandmen kuma qorna liiska ee magaaladaasi sida lagu sheegay go'aanka degmada Trondheim.